wardegdega waxa la sii daayay 25 maxbuus oo kamid ah maxaabiistii lagu hayay magaalada Laascaanood ee argagixisada cabaadweynta SNM laga qabtay kuwaas oo isugu jira dumar dad xanuunsanaya odayaashii waayeelka ahaa ee gacanta daraawiishtu leeftay madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye oo sheegay mujrimiintii iyo daalimiintii in maxkamad la soo taagayo kuwa aan la sii daynin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhamaan ummadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta oo maanta isku dul taagayno 25 maxbuus oo maamul goboleedka Khaatume State ay sii daayeen 25 ka maxbuus waxa kamid ah dumar caruur dad xanuunsanaya iyo kuwa xabada daraawiishtu leeftay odayaashii 80 jirada ah ee lunaarka ahaa ee xabada daraawiishtu leeftay wheelchair ku fadhiya dawladda Soomaaliya qaasatan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo golihiisa wasiiradu waxay codsadeen dawladda Soomaaliya in dadka waxa weeye loo sii daayo maadaama ay isugu jiraan dumar caruur cabaadweyntu ay ka carartay nimanka naagahoodii ka cararay dumarkoodii ka cararay ma macadar baa xitaa ku jirta sababtu weelada waxa weeye soo qabatay gabdhiye ka yaaceen iyagoo le war hanaga tagina qaar ay gawaarida ka soo tuureen iyo dad xanuunsanayo daraawiishti jabaahiirtii ee saa u ruqaansatay oo wheelchair ku fadhiya qaar waayeel ah ayaa hadda la sii daayay madaxweynuhu wuxuu sheegay Qaadir Aw Cali Firdhiye in waxa weeye maxaabiista kuwa mujrimiinta ah ee daalimiinta ugu horeeyo Faysal Cabdi Bootaan garka yogol iyo 25 kan inay saraakiisha ee madaafiicda magaalada Laascaanood ku la dhacay ee maatada leeyahay kuwa in maxkamadda Khaatume State la soo taagi doono shariicada islaamka la waafajin doono waxa ay sameeyeen lagu sameeyo bal waxa rabaa inaan waxa ay ku sameeyeen dadkana in lagu sameeyo waxa ka codsanaya barnaamijka duu soo gaarana si share garay sida salaad ku joogtana u soo tukabadayna gelin hadii kala nabi ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxa rabaa wax yar inuu bal aad isha saa u marino maxaabiistii 25 ka ahaa ee dawladda Soomaaliya codsatay ee waxa weeye maanta la sii daayay ayagoo calankii buluuga ahaa dulli isagoo dulleysan baan ku iri eegay horaan idinku sheegnay toobin baa la idinka dhigaya calanka buluuga maanta 25 ka maxbuus ee dumarka iyo isugu jira magaranaysa dadka waxa weeye xanuunsan iyo kuwa dhimirka ah ee dawladda Soomaaliya codsatay calankii buluuga ahaa inta loo xiray eegay waxa la tusay oo la fahansiiyay wada dhuxuleed inay saarnaayeen inay khaldanaayeen waana taaso abada ah burcay hargeysana calanka buluuga ah sidaas uu u tagi doonaa ee bal iyagu calanka Soomaaliya ku labisan oo calankiisa u leefleefaya oo alxamdulillah ilaahay oo wada Soomaali naga dhigay midnimada aan ogol lahay gobonnimada maxaabiista oo ducaynaysa ka carareen dumarka ka carareen musujuudan gurigaaga Allah ma nuuro magabada naadirta ka tagi kara oo ka carari kara tallaayeena la ilaaha illa Allah muhammad rasuul calankii buluuga ahaa baa loo xiray waxa weeye oo birohoodii sita Muqdisho laga dajiyay isbitaal baa hadda la dhigay waxa weeye dawladnimada sharafta iyo midnimada iyo gobonnimada waxa ay leedahay maanta nimankaas dareemaya baladeegay argagixisoy eegay waa ka maanta waxa weeye maxaabistiini iyo calanka buluuga waxa weeye ku labisan oo Ilaahay u mahadnaqaya oo midnimada iyo gobonnimada iyo Soomaalinimadu waxay tahay maanta aaminsan baladeegay laakiin midskay laawa mid aqligiina ha gelinina ha ku seexanina hana ku soo toosinina nagu binaadan baanu nahay dad muslim baanu nahay dad xalaal ku dhashay baanu nahay dad iimaan leh baanu nahay dad kiniinka cunama nihin eegay bini'aadanimada iyo islaamnimada iyo diinteeda macaanay nasiixa waxayna faraysaa qofka xanuunsanaya anagu sidiina waxa weeye maxaabiista idin habeen imaan bur lama dhacno ragga sida la isaga dhiciyana waa naqana sida maatada iyo dumarka iyo caruurta iyo qofka waxa weeye dhimirka iyo ka xanuunsan iyo ka dhaawacan loo daryeelana waa naqana mid aqligiina ha gelina Faysal Cabdi Bootaan iyo garka yogol iyo ragga la midka ah ee 25 ka eegay kuwaas inay soo baxaan ha sugina maxkamad baanu taagaynaa baan ku weedaldalaynaa daldal harig baanu ku ceejinayna siday dadka ugu xuyo sidoo ku galay hadaan loo galin sidoo ku garan sidoo ku galay hadaan loo galin sidoo ku garan bal khudbadii madaxweynaha Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State laandeeruhu dhalay oo arrinka ka jawaabaya shacabkana waxa weeye ogeysiinaya
ayaan rabaa inaan idinla wadaagnay barnaamijka si shargaraya kuwa dambiilayaasha ee daalimiinta cadaaladda la horgeynaya macnow waxaad iska ilowdaan Faysal Cabdi Bootaan iyo garka yogolaya inay soo baxaan ha ku seexan hana ku soo toosin waxaan maanta aanu sii daynay waxa weeye islaamnimada iyo diinta iyo dhaqanku uu nafarayo waa dad maata waa dumarkii aad ka caartay maama cadar baa ku jirta maama cadar madaxweynuhu xitaa sheegayo dumarkii baa ka yaacdeen hooyo cadar baa ku jirta waa maamo waa hooyo waa nin baa intuu soo kaxayay halkaa keenay waxyaalaha anaga xaaraanta naga waxa weeye dumarka iyo ciyaalka iyo gabadha la qaba iyo garasay nin dumaashidii bacsanaya baad arkaysaa waa dhaqanka Hargeysa yaala nin gabadhii uu qabay walaalkii intuu u dhaafo dhebi la dhacayo wala yacaanka buluuga bay seetaa xaasaska iyo ciyaalkii dumarka ciyaalka abtigootiin iyo gabdhaha aad qabtaan ma guriga ugu daad haye gobanimadii soo martaa gobannimo meel la idima soo marto cabaad weyni nin gabadhii uu qabay maana anigu gabadh walaalkay qabo oo dumaashida carruurta adeerka waa dhashay guriga inta ugu dhaco habeen madow bud la dhici kara kuwa aad haysaana hadii ay gaadho baan ku iri inta in leega haday gaadho ballan iyo axdi waxa abaan ku burcay Hargeysa in qayl ka yeedho uma naasiidan in shallatan lagu soo daayay mid haduu ka dhiman yahay baan ku iri nimanka maxaabista aad haysaan mid haduu uu ka dhiman yahay anagu gorgortan kaba gelimaynaba waxaanu samaynay bini aadamnimo aanu samaynay Soomaalinimo aanu samaynay dadkaas waxa weeye la soo waalay la soo khalday xanuunsanaya ilaa qof xanuunsanaya oo aan iska ka celin karin oo wuljeer ku fadhiya iyo gabadh ooyeysa waxaana uma dhageysan karno taasaan u eegnay wada tashi dheer waxa la yiri dadka maatada iyo dumarka ay ka carareen xitaa ciyaalo waxa ku jira 14 jir oo qoriyo soo dhiibeen iyo odayaal 8 jir oo ay baashu leeftay waa leeftay rag baa Cabdi Madoobe iyo daraawish jamaahiirtii wiilasha hartay waa u ruqaasaday ay leeftay wuljeer ku fadhiya isbitaal Martiini bay ku jiraan maanta dhamaantood dawladda Soomaaliya qaaday calanka buluuga ayagoo ku qanacsan dawladnimada ku qanacsan sharafta ku qanacsan saa calanka Soomaaliya u leefleefaya waxa weeye alxamdulillah rabbil alamin ilaahoda Soomaaliya naga dhigay ilaahu calanka buluuga ilaahooda cawaale la siiyay iyagoo leh ilaahay ka sokow cawaale madaxiisa ku soo baxeen waa kuwa dadkii masaakiinta soo luguyseen SNM argagixisoy calan casay ilma la fasidato beenaalayaal dadka soo luguyseen masaakiinta waa kuwa maanta waa la daryeelaya dawladnimadu wata shacabka waxa weeye Hargeysa burco jooga wayna maskaxdooda dib ugu noqdaan beerad ba soo lagu guray maanta iyo calanka buluuga aasta haye argagixiso ay dareemaysan maanta xaalkiina xagu maraya mar dhoway afka furanaya sidii yey dhashay iyagoo la maro TV-yada fadhiya arkayso tamar male tayeb male aqli male damiir male garasho male laakiin shacabku waxaan leeyahay ruuxa dulliga sida idii bahdilaya iska qabtaa leeyahay hadda aqli leedihiin madaxweynuhu waa ku maadsan yahay madaxweynaha Khaatume State mudane Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye iyo golaha baarlamaanka golaha wasiirada golaha amniga iyo shacabku waa ku maadsan yihiin sida gobonnimada leh bini aadamnimada leh islaamnimada leh waxa weeye inta nagu dhiman lahaayeen halkaas waxa weeye ku dayacmi lahaayeen inta ka horeysay waa la soo hayay waa la daryeeriyay waa la daweynayay maanta hadii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay alxamdulillah weeye insha Allah bidnillahi kariim imma daalimiinti baa soo haray kuwa 10 official baan ku TV-yada caalamka laga daawanaya si toosa shariicada islaam kitaabkaas loogu furaya kitaabka munazalka baa loogu furaya shariicada islaamka la horgeeniyo waxay shariicadu u goysana way qaadanayaan kitaabka Ilaahay baa loo furaya wala qodob baan jirin ولا حير بانشرين ولا دبيع سجال حريتين حير كعقابة شريعة الإسلام كسر لوجي كتاب كسر لوجو فري وإيش شريعة السوينا قاضنية هالسوينا قال كي يقول يا فيصل عبد البطل صبحان أبدا أصلا ما نقول الربي يا رساس كبرية يكون راح يسوي يورين ككارا والبرنامج كاسي شرقية قبل نبدأ صريخ خاتمه ما أنت ومد الصومالية ضلوا يحودوا عين صريخ خاتمه ما ملك هذا مدحوينه هذا قبل نبدأ نمكة كوشرتا reer Khaatumo iyo sharafka iyo karaamada nimanka Ilaahay siiyay cadow Soomaaliyeed markay arkaan gaal markay arkaan gumaysta markay arkaan miciye libaax bay yeeshaan reer Khaatumo qofka Soomaaliga laakiin aad bay ugu naxariistaan gobonnimada iyo naxariista iyo sharafka iyo karaamada reer Khaatumo leeyihina ummadii Soomaaliyeed maanta waad aragtaan marag iyo marxaati baad ka tiin horeysa iyo dambayso in Ilaahay hadiyad reer Khaatumo inay tahay hadiyad Ilaahay ummadda Soomaaliyeed siiyay oo makan siiyay
aad baad u mahadsantihiin khayr iyo baraka dirijinaya barnaamijka sii sheer galay balaad deegay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.